tuuladan waxay ka tirsan tahay deegaan lagu magacaabo Badma oo dhaca dooxada waqooyi galbeed ee dalka Bangladesh. waxaa dadka ku nool halkaasi dhibaato ku hayo nooc ka mid ah masaska oo loo yaqaan Russell Viper. maska Russell Viper ayaa maalmihii ugu dambeeyay qaninay ama waxyeelo u geystay dad badan xilli cabsi xoogan uu ku reebay bulshada halkaasi ku dhaqan. Russell Viper ayaa ah maska ugu halista badan ama ugu sunta badan dalalka Bangladesh iyo Hindiya. maskan ayaa laga helaa oo uu badan yahay meelaha dhulbeereedka ah, iyadoo dadka beerleyda ah waxay markaasi kala kulmaan dhibaato xoogan iyadoo ku joogsan karaan marka xilliga habeenkii ay soconayaan ama ay ku istaagi karaan. kadibna waxaa dhacday in maska marka lagu istaago uu dagaal sameeyo, kadibna uu qofkii weeraro oo uu dhibaato qaniya u geysto. maskan ayaa marka qofka uu qaniino wuu miir daboolmaa, saacad kadibna waxaa biyo gala jirka qofkaasi la qaniinay. sidoo kale dadka uu qaniinay maskan waxaa lagu arkay dhiig bax joogto ah, xinjirowga dhiiga, nabaro ka soo baxa dhanka isha sare, qaybo ka mid ah jirkooda oo qalla iyo kaliyaha oo shaqadooda joojiya. waxaa loo maleeyay in maska markii hore la filayay inuu ka dabar go'ay dalka Bangladesh iyo sidoo kale dalka Hindiya, laakiin muddo haatan laga joogo 10 sano ilaa 12 sanadood ayaa markale lagu arkay dalkaas isagoo muddo sanado ah aan lagu arkin. Professor Ahmed Mansour oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda lagu magacaabo Chittagong ee dalka Bangladesh qaybteeda xanaanada xoolaha ayaa cilmi baaris uu sameeyay soo sheegay in maskani uu haatan ku hayo baaritaan dheer. sidaad arkaysaana waxay sameynayaan macmal cag qof bini'aadan ah si maskaasi loogu istaajiyo, kadibna la arko waxa uu sameynayo iyo xadka sunta ay markaasi markuu maskaasi lugtaasi artificialka uu qaniino uu ku sii deynayo.